Bisada iyo jiirka waxaa ka dhaxaysa cadowtinimo, sababtoo ah mukulaashu waxa ay ugaarsataa jiirka oo waxay ka dhigataa cunto. Haddaba jiirku si uu isaga ilaaliyo in loo cuno waxa uu ka fogaadaa bisada. Xataa waxa ay saynisyahanadu ogaadeen in jiirka ama dooliga uu ka cararo meesha ay uga soo urto bisada, sida meel ay mukulaashaasi ku kaadisay. Laakiin saynisyahanada ayaa waxa ay soo heleen arrin cajiib ah markii ay arkeen jiir aan ka baqayn bisada oo meesha ay urkeeda yaallo aan ka cararayn, taasoo keenaysa in jiirkaasi khatar galo. Goortii ay baareen jiirkaas ayaa waxa ay ogaadeen inay sabab cajiiba ka dambayso. Sababtaasi oo ah maskaxda jiirkaas ayaa la bedelay oo waxaa bedelay oo ka faa'iidaysanaya parasite raba inuu galo bisada. Oo sida parasite-ka dhaliya cudurka malaariyada. Malaariyada maaha inay kaneecadu dhaliso ee waa parasite ku nool kaneecada oo suu u tarmo waxa uu u baahan yahay inuu qof ama xayawaan ku dhaco. Haddaba parasite-kaas kaneecada ayuu raacaa si ay bani aadan ugu geyso markii ay cunayso. Haddaba parasite-kan ku jira jiirka ayaa waxa uu rabaa inuu galo bisada si uu marka sidaas u fududeeyo waxa uu wax ka bedelaa maskaxdii jiirka. Oo waxa uu ka dhigaa inuusan ka baqin bisadaha, taasoo keenaysa in jiirkaas la cuno, markaasna faa'iido uu ka helo parasite-kaas oo uu galo dhiigga bisada halkaas oo uu awood u leeyahay inuu ku tarmo. Parasite-kan ayaa waxaa la sheegay inuu dadka ku dhaco laakiin dhibaatooyin weyn uma geysto hadduu qofku caafimaad qabo. Waxa uu sababaa infekshan ku dhaca dadka difaaca jirkooda uu hooseeyo, sida kuwa qaba AIDS-ka. Wadamada qaarkood ayaa waxaa la sheegay in parasite-kan uu dadka badankood jirkooda ku jiro. Tusaale ahaan, waddanka Faransiiska 84% dadku waxa ay qabaan oo dhiigooda ku jira parasite-kan. Inkastoo ilaa iyo hadda ay saynisyahanadu hubin dhibaatooyinkiisa ayaa waxay haddana dhahaan waxaa dhici karta inuu ka qayb qaato cudurro ku dhacdo maskaxda.